gabadha maxay ahayd la yiraahdo Shayma baa waxay tuhuntay arrinta gabadhan inay wax gurigaas ka qaldan yihiin sababtoo ah dhowr jeer bay waxay weydiisay reerkiinu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh asxaabay. waa ilaahay mahadi haddii aan isku soo laabanay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad. asxaabay intaan barnaamijkan u gelin hal codsi baan wataa. waxaan idinka codsanayaa oo codsi ah inaad subscribe, like, share iyo saartaan wixii aan soo arko aniga oo tala jeedinahna waa xaggayga. idinkuna wixii aad qabtaan waa ila wadaagi kartaan, commenkaad igula wadaagi kartaan. asxaabay maanta waxaan idiin wadaa qiso aad u xanuun badan runtii oo ma aragtay qofkii ma aragtay damiir la waalidiinta aad u danqanaysa baan idiin wadaa. qisadan waxaa ka sheekeeyey oo soo ogaaday gabar la yiraahdo Shayma waxay ahayd gabar 24 jir ah oo degan magaalada Warrington la yiraahdo. qisadan waxay ka dhacday wadanka Ingiriiska, magaalada Warrington bay ka dhacday. Shayma waxay saaxiib la ahayd gabar la yiraahdo Meef waxay ahayd familiga ay qisada ku dhacday bay ka mid ahayd. gabadhan qisada ay ku dhacday oo ma aragtay la dilay, gabar baa la dilay meeshaan, dil baa ka dhacay. qisadan waxay ka sheekeynaysaa waa crime weeyaan. waxay la sheekaystay gabadha Shayma oo saaxiib la ahayd Meef waxay ahayd gabadha la dhalatay gabadhan la dilay. gabadha la dilay waxaa la oran jiray Shafayla ayaa la oran jiray gabadha la dilay. qisadan waxay dhacday sanadii 2003 bay dhacday. asxaabay waxaa maxay ahayd oo meelkooda noolaa famil caadi ah oo isdhalay. familkaas waxay ka koobnaayeen saddex aan iraahdo saddex ay ka koobnaayeen, laba gabdhood iyo wiil iyo aabe iyo hooyad bay ka koobnaayeen familkaasu. asxaabay markay maxay ahayd qisada markay bilaabanayso waxaa iskuul ahaan jiray gabar la yiraahdo Shayma iyo waxaa isku galaas ahaa maxay ahayd gabadhan la yiraahdo Meef oo ah gabadha la dilay walaasheed. marka Meef ayaa waxay weydiin jirtay su'aalo fara badan, maalinba xoogaa bay ka weydiin jirtay. waxay leedahay Shaymay gurigiina ma la isdilaa marmar? waalidkiin markuu xanaaqo muxuu sameeyaa? markaas Shayma waxay ku leedahay waxbay noo sheegaan, isaan ma fiicna un baynu dhahaan, ma aan wax kale oo zaa'id gurigeena kama dhaco, maxaa jira? markaas waxay tiraa maya waxba ma jiraan. iskaa weydiinaya gabadha marka sirteeda inay qarsato bay jeclaan jirtay gabadha Meef la yiraahdo. haddana xanuun ma aragtay oo goobjoog bay waxay ka ahayd dilkii walaasheed. taasay marka isoo gocanaysaa in yarba. markaas waxay is leedahay haddii aad wax sheegto armaa tii kugu dhacdaa walaashaa ku dhacday. baqdin baa ku jirta gabadha la yiraahdo Meef. marka maalmaha ka mida bay waxay weydiisay gabadha Shayma ahayd. waxay tiri walaalay waxaan ku weydiinayaa adiga weligaa waalidkaa gacan kuu qaaday? waxaa la weydiinayaa gabadha Shayma ahayd. qisadan gabadha soo sheegtay waa Shayma la weydiinayaa waalidkaa weligaa gacan kuu qaaday? markaas waxay tiri maya weliga gacan ma qaadin, laakiin waalidkay marmar buu xanaaqaa, markuu xanaaqana waxaan sameynaa waan isfahnaa. sheekada markay halkaa marayso bay waxay tiri gabadha Shayma ahayd waay arrintan aad ma aragtay igu soo celcelisaa maalin kasta, ma dhib baa jira? saaxiibtaahanahay waxay igu aamini kartaa, ii sheeg hadday wax dhibi jiraan. markaas waxay tiri gabadhii Meef ahayd maya ka gudub arrintaas, hadda inaan ka hadlo ma aragtay diyaaro ma ihi. markaas waxay u raacisay gabadhii Shayma ahayd haddii aad rabtid inaad arrintaas igala hadasho anytime maxay ahayd diyaar baan ku ahay, waad ma aragtay igala hadli kartaa. waxba ha ismagaciisiyeynine aniga maxay ahayd qof aamini kartaa anahay, aamin saaxiibtaa baan ahay, waxba ha iga qarinine ii sheeg waxa jira. maya hadda kama hadli karo maanta, diyaar ma ihi. way sheekadii halkii bay ku hakis. haddana waa la joogay maalin kale haddana ay sheekaysteen iyagoo iskuulka jooga. ka sheeka dhaafine gabadhan maxay ahayd Meef waxaa la dhalatay gabar la yiraahdo oo Elisha baa walaasheed ah iyo wiil.
wiilka magaciisa ma garanayo magaciisa waxaa laakiin wiil baa la dhashay kulley sheekada wiil baa ku jira waxay tiri maalin maalmaha ka mid bay waxay tiri gabadhii ahayd meef waxay tiri arrin baa jirta laakiin intaan ka badan ma qarin karo walaali annaga waalidkeen waxay yaqaanaan gacanka hadal oo maalin kasta qofkii wax yar oo kala sameeya waa laga raacaa guriga waa hee laga raacaa haye marka waxay tiri annaga bannaanka uma bixi karno meel ma aadi karno waxba ma samayn karno iskuulka markaan aadayna waana la geeyaa waana la kasoo celiyaa adigoo xitaa saaxiibtay ah kulama kulmi karo marka walaalay annagu dhibkaasaan qabnaa adigu ma nala qabtaa gabadhii shay ma ahayd way yaabtay wayna tuhuntay in ay wax jiraan markaas waxay ku tiri walaalay haddii aad dhibkaas qabto oodan ka hadli karin qoraal ma ii samayn kartaa inta qalin warqad qaadato ma qori kartaa wax adigoo maxay ahayso maaragtay markaas cabsidaado oon ku hortaaganayn aniga wax gudaha kaaga jiro baqaysaa kolley ujeedaaye bal ii soo qor ila soo wadaag sidaan arrintan maaragtay aad dhibsatay ood rabta inaad ka hadasho gabadhii meef ahayd waxay tiri okay taasaa ii fiican maxay ahayto qoraal baan samaynayaa arrintan waan kula wadaagayaa qoraal ahaan iyadoo ah waayaha sidiiba isku afgarteen aan ka gudubno gabdhii afgarashadoodii arrinta meesha ka dhacday ayaa waxay tahay gabadha la yiraahdo Shafayla Ahmed baa waa la dilay Shafayla gabadha la yiraahdo waa la qaartiyey laakiin lama oga wax dilay Shafayla waxaa dilay aabaheed iyo hooyadeed baa dileen ilmahana kulligood waa gabadha meef la yiraahdo gabadha la yiraahdo Alisha goobjoog bay ahaayeen marka la dilay habeenkii walaashooda dilay goobjoog bay ahaayeen qisada magaceeda waxaa la yiraahdaa waxaan marqaati ka ahaa dilkii walaashay baan goobjoog ka ahaa anigoo waxba ka qaban karin baa horta qisada magaceeda la yiraahdaa marka gabadha qisada ay ku dhacday waa gabadha la yiraahdo Shafayla Ahmed baa la yiraahdaa waa reer Warrington gabadhaas waxaa la dilay iyadoo 17 jir ah baa la dilay gabadhaas waxay ku baxday gacanta aabaheed iyo hooyadeed bay ku baxday aabaheed iyo hooyadeed waxaa halkaa idin soo saarayaa shaashadda masawirkooda waa kuwaasaa Shafayla aabaheed iyo hooyadeed waa kuwaasaa marka gabadhan Shafayla waxa dilka u keenay waxay ahayd control dhowr jeer waxaa la weydiiyey su'aal ah waalidka maxay sameeyaan markay xanaaqaan waalidka maxay ahayd gurigeena marmar ma isku dhacdaan oo ma aragtay ilmihiina marmar gacanka hadal ma lagu sameeyaa waxaa weydiinaya arrintaas su'aalahaasoo dhan ay ka imaanayaan waxaad ku ogaan doontaan qisada aan maanta idiin soo wado markaan u guda galno baad ku ogaanaysaan waa qiso aad xasaasi u ah waa qiso aad maxay ahayto familiyada ma aragtay ilmahan qurbaha lagu haysto waxyaalaha la soo gudboonaada bay ka mid tahay qisadan iyada ah asxaabey waxaad ku ogaanaysaan inta dambe barnaamijkeena aan maanta idin soo jeedin doono asxaabey sheekadu markay halkaa marayso baa waxaa dhacday qisadan waa qiso aad u dheer qaybta labaad baad maaragtay kala socdo janaalkayga sheekadu markay halkaa marayso baa waxaa dhacday gabadhii maxay ahayd Shayma ahayd baa waxay bushkaraysay inay ogaato qisadan gurigan ka dhacday iyo gabadhan iyo waxa meesha ka jira iyo bay bushkaraysay inay ogaato arrinta markay halkaa marayso bay waxay ku tiri Shayma gabadha ahayd baa waxay leedahay Shayma sawirkeeda waa kaas shaashada idin soo saaraya Shayma iyo gabadha meef ahayd oo kuwaas labadooda sawirkooda halkaas shaashada aad uga jeedaan waxay tiri ii soo qor walaalay qoraal ahaan iigu soo gudbi qoraal ahaan iigu soo gudbi iyo waayahay baa lagu ballamay in qisada ay soo qorto asxaabay qaybta koowaad ee qisadii ahayd dilkii walaashay baan goobjoog marqaati ka ahaa maanta intaasaan kusoo gabagabaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu haddii aad ku cusub tahay janaalka subscribe like share waa xaggaaga kala soco janaalkayga qaybta labaad ee qisadan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waqtigaa idin wacnaado